بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وحانا هي دبد علي عامي أو كمد أودياشا وقوي بري قبل كان كينيا خاصيا كاونتي غاريس وحان روا أون ميشا نسوغو إماني دباتادا كو إماتي سالم ويل كاير ميشا فديو إي آبيس culays baa jira wadankan dhaxdiisa isbitaal sheekha wuu dadaalay waxba waa laga qaban waayay waxa imaaday culays lagu qasbay inaan dadka muslimka ama Soomaalida gudaha inta joogto inta dibadda joogto inaan u cabanno oo u qaylisano sababta aniga aan u hadlayna waxa weey Sheekh Xasan Cami culimada Gaaris buu kamid yahay waa nin hal doorka anaga وانين مصلحة أمة الصومالية إيو مسلمين تكينيا كهل أو مرمر حتى نفتي سخطر وقلي وحيالها أن حسوسنا هاي وحكمده إنو أها دادكي أقايلنا حقوق دا قحوتيك وقتي صوماليا إيسو بربورتي أو دادك برانكعي رجي علماء هاي استاجي أيو كمدها حقوق قحوتيga ka hadlay xuquuqda Soomaalida ka hadlay xuquuqda Kenya ka hadlay marka aniga waxaan dhigi karaa waa hal doorka anaga waxa uu yahay aan ku garab istaagno waxa uu yahay iyo dadnimadiisa iyo qaybta uu bulshada ku lahaa aan la garab istaagno wiilkaas rajo fiican bay dhakhaatiirta sheegeen haddii meesha la geeyo ilaahay baa nolol haya laakiin inay aad iyo aad daawo ay u jirto Jarmal ayaa naloo sheegay marka codsigayga waxa weey wiilka yar aan u kaalmayno sheekhana siduu waligii noogu halgami jiray aan u garab istaagno xaq buu u yeeshay inaan u hadalno oo ka hadalno dadnimadiisa iyo wadaninimadiisa iyo waxyaalaha uu Gaaris u qabtay ama khatarta uu naftiisa u galiyay codsigayga waxa weey in mudeebo dadka Soomaalida waxaad moodi inay isqadarintii iyo waxyaalihii badnaa oo dadka ummadda ka dhaxaysay inaan ka yar gaabinay marka waxaan rabaa in loo soo baxo wiilkan wax la taro sheekhana xaq buu nagu leeyahay xaqiisa aan u gudno wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh